daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo tinida dabcan maanta barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay falanqayn ku saabsan ama qaadadhigis ku saabsan qatiyadii aan horey uga hadalay ee dalalka Pakistan iyo dalka Mareykanka horey intii daawatay waxaynu ku qaadadhignay xiisadan dalalkan waxay salka ku hayso iyo sida ay markaasi u soo bilaabatay tan iyo intii Mareykanku uu horey ugu dhaleeceeyay dhowr jeerna ay ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ka dagaalama ay horey ugu dhaleeceeyeen dawladda dalkaasi Pakistan inaysan wax buuxda oo muuqda aysan ka qabanaynin markaasi kooxaha wax qarbuda iyo kooxda Taliban ee dagaalka kula jirta Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ciidamadooda halkaas ka dagaalamaya dabcan mar walba waxaan jecelahay si wararka maalmaha ay markaasi dooranno inaynu sii dayno wararka qaadadhigista ama falanqaynta ka baxsan wararka aan dhaho inaysan noqon mid u xiran maalin gaar ah maadaama ay jiraan warar xoogan oo soo dhici kara tusaale ahaan maalinta Jimcaha oo kale oo wararku ay jiri karaan warar diblomaasiyadeed oo ama warar caalami ah oo ay tahay in laga hadlo oo dadka inay dhaafaan aanu runtii dabcan aanu diidanahay sidaa daraadeed waxaan haatan iyo kadib dooranay inaanu ka dhigno falanqeymaha maalintii kasta ee dabcan aysan jirin warar xoogan iyadoo mar walba ay wararka diblomaasiyadda ama wararka caalamiga ay yihiin kuwo iska jira oo aad u badan mar walba soo xoogeysanaya balse mar walba waxaan ka dhiganaa dhaxtaal ama dhaxtaal baynu ka dhiganaa maalinta aynu markaasi falanqaynta sameynano qadiyadana dabcan dad badan ayaa aad ugu cilqabay aadna u rabay in mar walba la falanqeeyo dadka Soomaaliyeedna runtii way ka qayb qaadanayaan oo dabcan wayna afkaarteena waanu jecelahay inaan maqallo marka maanta waxaanu jecelahay inaynu arintaas saameynta yeelan karto ama raadka ay ku reebi karto Mareykanka iyo Pakistan labadaba aynu eegno Mareykanka hadaynu ka horeeyno ama Pakistan hadaynu ka horeeyno inta badan raadka ay ku reebi karto wuxuu ku xiran yahay Pakistan dhaqaalahan dhaqaalahiisu liito maaha laakiin runtii wadal wali ku tiirsan si inay u helaan deeqo caalami ah oo dhinaca militariga iyo dhinaca tashiilaadka sida dareedeed dabcan lacagtan Mareykanka uu hakiyay inkastoo san si rasmi ah u jarin mar walba ay ku yeelanaysaa saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalaha dalkaasi Pakistan sidoo kalena Mareykanku maadaama uu galaangal siyaasadeed oo muuqda uu ku leeyahay gudaha dalkaasi Pakistan waa laga yaabaa inuu farafreyn xoogan oo kale Mareykanku uu sameeyo inkastoo siyaasadda madaxweyne Donald Trump arrimaha dibadda ay tahay mar walba in loo daneeyo danaha qaranka Mareykanka isla markaana aan dhaqaale badan lagu bixin in la kharbado dal kale ama markaasi siyaasadiisa uu aaminsan yahay kamid tahay in uusan Mareykanku inuu yareeyo Mareykanku faragelinta arrimaha dibadda ee uu hayo kolka ay timaado dalalka markaasi shisheeyaha aan lagu bixin qarash badan ama qarash badan dawladda aan lagu dul saarin inay markaasi fuliso markaasi mu'aamarado waa sida isagu sheegayo ama sida isagu dadka ku dhowdhow anta badan aad u yaqaan Mr. Trump wuxuu sheegayaa inuu aaminsan yahay in lacag kasta oo ay tahay in Mareykanku uu ku bixiyo faragelin iyo burburin dalal kale ay tahay inuu ku bixiyo dibadhiska dalka Mareykanka waa sida madaxweynaha afkaartiisa iyo waliba siyaasadiisa ay ku qotonto siyaasadiisa loo yaqaano mar kale America wanaaji ama make America great again taasoo inta badan hal ku dhig oo hawlalihiisii dhawaana uu ku soo celiyay markaasi uu mar dhexe oo dabcan mar uu ka hadlay qatiyadii aflagaadadii uu dalalka Afrika u geystay uu ku sheegay inay yihiin dad markaasi ka yimid dalal aan wax tar lahayn oo qashin quba oo kale ah uu markaasi haddana isticmaalay oo yiri aniga ujeedkaygu waxay ahayd inaan Mareykan mar walba ka dhigo mid markaasi wanaagsan kol kale marka arinta qatiyada Pakistan dabcan militarigeedu inta badan dhaqaalahan ay siiyaan dalalka Mareykanka waa kuwa ku saabsan dano ay markaasi doonayaan inay Pakistan fuliso ay kamid tahay inay yareyso saameynta kooxahan wax qarbuda ama kooxahan galaangalka kule dalalka Hindiya iyo waliba dalkaasi Afghanistan taasoo dabcan Pakistan kulay dhaqaale ba ka baaqday oo waxyeelo way gaarsiin doontaa hase yeeshee Mareykanka ayaa la aaminsan yahay in waxyeelada ugu badan soo gaarayso maadaama Mareykanku yahay kan haatan dagaalka ku jira dalka uu dagaalka kula jirana saameynta ugu badan ee dhinaca dhulka iyo kooxahan laftooda oo galaangal xoogan kule dalka Pakistan fadhiisanayna la aaminsan inay kule yihiin gobolada qaar ahaan qowmiyadahan isku xiran qowmiyadan Pashtuga oo kale oo qowmiyad balaaran oo labada dalba
ku maartay dhaqana markaasi Pakistan waxay kaga baxsanaysaa ama arintan ay kaga baxsanaysaa kaga badbaadaysaa waxay haysataa wax loo yaqaan qorshe labaad ama plan B oo ah dalkaasi China oo xiriir la leedahay China wuxuu ballan qaaday haatan inuu kordhiyo maalgashiga billion dollar ayuuna u raise gareeyay ama u bleach gareeyay dalkaasi Pakistan ama uu sheegay inuu siinayo wuxuuna sheegay inuu kor u qaadayo lacagta maalgashiga ee Pakistan oo ka geysto iyo waliba tan markaasi uu siinayo qalabaynta ciidamada militariga dalkaasi Pakistanna Hindiya waxay runtii isku hayaan dhul sidoo kalena Hindiya iyo China waxay isku hayaan dhul sida daraadeed loolankan haatan madaxweynaha Mareykanka cadeeyana way galayaan oo China mar walba waxay muujin doontaa garab ka xoogan ay saari doontaa dalkaas Pakistan ruushka oo isaguna haatan aad u soo tafaxiidan isla markaana mar kale doonaya inuu dunida ka dhex muuqdo wuxuu haatan ku dhawaaqay isaguna inuu dhankiisa inuu Pakistan taageeri xoogan ama cilaaqaadka Pakistan ee militariga Pakistan ay leedahay haday tahay ka iibsiga hubka iyo haday tahay wax isdhaafsiga labada dalba ay kor u qaadayaan markaasi Mareykanku wuxuu ku waayay kara wada shaqeyntii mukhaabaraadka dalkaasi Pakistan ee ISI hay'adda la yiraahdo ay markaasi u soo gudbin jirtay macluumaadka ku saabsan la dagaalanka kooxaha wax qarbuda ee dalkaasi Afghanistan iyo kuliba meelaha kale sidoo kale wuxuu Mareykanku ku waayay kara oo hadii xaaladdu sii xumaato in isticmaalka dekedan Karachi isticmaalaan dawladaha NATO ee Mareykanka ugu horeeyo uu joojo sidoo kale wuxuu ku waayay kara Mareykanku in ay Pakistan ay ugu yaraan ay ogolaato maadaama Afghanistan ay dhaleecayntii ku biirtay oo ay aad ugu saabtantay go'aanka Mareykanka in xitaa Pakistan ay gacmaha ka laabato in wax kasta dawladda dalkaasi Mareykanka ka dhana ay hadaysan laba shaqeyn oo aysan fududeyn ay ugu yaraan isha ka eegto aysan waxba ku darsan runtiina muhiim ayuu noqonayaa dagaal kasta oo ay Afghanistan ka soconaya in Pakistan ay la jirto labada qolo ahaan qolo muhiim buu yahay qoladii Pakistan la jirto ayaa cid walba aaminsan tahay inay guusha ugu dambaysa yeelan doonto ama dagaalka ay daba dheere karto oo jiidi karto ama lagu jiidi karto Mareykankuna haatan wuu og yahay taas lama yaqaano Mareykanku goorta uu markaasi arinta dadaal xoogan oo ka sameeyo lamana filayo in madaxweyne Donald Trump oo lagu yaqaano madaxdeeg iyo dabcan inuu nin isla weyni xoogan ay ku jirto inuu arintaas ama madax taag wax loo yaqaano inuu arintaas uu ku dhiirido lamana yaqaano in siyaasadda Mareykanku kolka isbedesho xilligan mid election ka leeyahay ama doorashada xilliga dhexe ama waqtiga dhexe November ta soo socota hadii alla idmo sanadkan dabcan ay wax ka bedesho siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka iyo tan arrimaha gudaha balse dalka Pakistan asagu mar walba wuxuu kor u qaadaya cilaaqaadka uu leeyahay China maadaama Mareykanku wuxuu kor u qaaday cilaaqaadka dalkaasi Hindiya laakiin Hindiya markay Afghanistan timaado wax badan kama qaban karto wax badan kama dabcan kama tari karto Mareykanka dalka wax ka tari kara Mareykan waa dalkaasi Pakistan marka khasaaraha marka labada dhinac ba la eego mar walba wuxuu u janjeersamaya ama dhinaca xoogan u noqonaya marka si cadaalad loo eego dalka Mareykanka waayo dalka Mareykanka waa ka dagaalka ku jira waa ka ciidamadiisu ay safka hore tuban yihiin waa ka dagaalku ku daba dheeraaday dhaqaalaha ugu xoogan ayagu ka baxaya dalalka NATO inta badan waa daaleen tusaalahan dalalka qaarkood waxay qabaan in ciidamada laga saaro oo dalal badan ayaa doonaya inay dhamaadka dabayaqada sanadka 2019 ay ka saaraan ciidamadooda oo ay gaashaanbuurta NATO haatan kuma qanacsana la shaqeynta madaxweyne Donald Trump iyo sida ay tahay in loo tacaamulo waxayna u arkaan in aan u qominaynin danaha gaashaanbuurta sidoo kalena dabcan dalkaasi China fursad weyn ayaa meesha ugu jirta oo waxa ay ka faa'iideysan doonaan isku dhaca labadan dal oo dalkan waa dal aad muhiim u ah koonfurta Asia oo dal marka u horeysa ciidan xoogan leh oo dal marka labaadna xiriir fiican la leh dalka Islaamka dhan waa dal ay ku ixtiraamaan inuu yahay dalka kaliya muslim ah ee la hubo inuu hub nuclear haysto isla markaana awood lixaad u leh inuu xataa hadii xaaladdu xumaato uu markaasi farsamada hubkan iyo lagaga faa'iideysto ama macallimiin xilkasta oo garanaya hubkaas iyo saynisyahano ilaa xad wax suubi kara noocaas oo kala markaasi dunida ka caawi karo dabcan dal kasta oo qatiyad leh oo dalalka caalam islaam ku yaala way qadariyaan dalkaasi China mar walba waxay doonaysaa iyadoo dalkii ka soo yara fuqa ama isku yar dhacaan dalkaasi Mareykanka inay gacanta u haadiyaan dawladdan Pakistan waa dawlad dabcan kamid ah dawladaha adduunka ugu tirtirro markaasi tirtirro weyn waxa keenaya hubka nuclear-ka asagoo kan sida xun aadanaha iyo
noolaha u gumaado oo haatan dee kan lagu faanayo ee dunida dhan haystaan Pakistan ay kamid tahay dalalka markaasi haysta markaasi inkastoo Pakistan mar walba ay colaad xooggan kala dhaxayso dalkaasi Hindiya haddana Pakistan dabcan isma dhiga doonto China-na fursada ma dhumi doono sidoo kale dalka Ruushku uu ka faa'iideysan doona dalalka kale xoojinaya xiriirka Pakistan leeyahay waxa kamid ah dalka Turkiga oo isaguna ah quwad haatan aan la dhayalsan karin oo dunida ku soo korodhay dabcan Mareykanku inuu ka fikiri doono ayay u badan tahay aakhirka ugu dambeeya ama ha noqoto xilligan madaxweyne Donald Trump waqtiga hayo oo madaxtinimada hayo ama ha noqoto madaxda dambe ee soo socota ama ha noqoto si kale oo arinta loola tacaamulo mar walba Pakistan waa ciyaartoy dhinaca gobolka ah oo ay u baahan tahay dawladda dalkaasi Mareykanka ay doonayso inay gacmaha ka gorto ama sida ay doonayso mar ay ka lug baxdo dagaalka ay ka wada Afghanistan hase yeeshee dagaalka Afghanistan uma eka mid farqo qodan tahay isla markaana mid loo taageelayo ilaa haatan uma eka halka kaliya ugu fiicnaan wuxuu ahaa halkii wixii loo yaqaanay tubtii wada hadallada in ama wixii ay waday dawladda dalkaasi Qatar oo ahaa in Taliban wada hadal la galo isla markaana ugu yaraan loo ogolaado inay dawladda dalkaasi madaxweyne Ashraf Ghani markaasi ay la gasho wada hadal oo qaybsi la gasho taasna haatan ma muuqato wada hadalaas oo way dhisoobin dawladda Pakistan mar walba iyaduna waxay ciyaari doontaa markaasi xiriirka ila leedahay mar walba gudaha dalkaasi Afghanistan way xoojin doontaa ugu dambeyntina Pakistan waxay ku qasbi doontaa Afghanistan in ay Mareykanka ka soo hadho oo markaasi ay wada hadal iyaduna la furto Pakistan oo ay markaasi ka qanacdo in Mareykanku uu wax muqooniyo Mareykankuna mar walba dagaalka inuu ku daba dheeraado dan ugu ma jirto dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo sumcad ahaanba markasta uu daba dheeraadana waa mid iyaga xun haddana ku wareejiyo marka engineer Yaasiin iyo dawadayaasha qiimaha leh iyaguna afkaartooda iyo waxay ka yiraahdeen qadiyada assalaamu calaykum